شباب يوحى صهر داعش ينت الله المانت سؤال بردي ويديننا بالله عليكم ميدين ترسيهن انت الدشان ترعان كلي مو تقانا انت الروح الدشان واحد كد دشان مقارنة يسان محقبة مبادل با ما مناينين الدنتان حديث بيدري شدانا وحي رادان ثم لا يبعثون على نياتهم عائشة وحي تري النبي وحي الشيخ صلوات الله والسلام عليه ومد soo socoto meel banaan oo maka agteeda lagu rogi doono oo suuqlaydoodii iyo kuwii soo duulay iyo kuwii inkaarta qabayba waa la isla rogi doonaa kaasa waxay tiri rasuul allah oo kuwaas masaakiinta oo aan dagaalka ku jirin oo meesha lagu leeyay xalkooda noqonaya waa la rogayaa buu yiri niyadoodana lagu soo saari doonaa shabaabku markay dadka leeynayaan tarabtarta u leeynayaan xadiiskaasi daliishadaan laakiin xadiiska wuxuu ka hadlayaa musiibo xagga rabbi ka soo dhacday xadiisku ka hadli maayo in dad bini aadan oo jira ay iyagu musiibo noqdaan oo marka intay dadka soo laayaan ee ilaahay u diraan yiraahdaan ilaahu intaas ku soo dilay adigu kala saara kii fiicnaa kii xumaa adigu ma fiicanta sida u dish xagaysa ka timid fiicnaanta ummadda lagu kharibayo lagu leynayo amnigeeda lagu baalkeenayo waxaad ku jirtaan oo sameeynaysan ummadda cadawgeeda u nugleynaysan بكل ما في الأمر وأنت haddaydan cadawga la shaqaysanaynin sida tan ummad looguma heeliyo kuwa la soo qalday aaminsan wuxuuma ummadda ka qaldan ee waxaan rabnaa inaan wax u hagaajino war qofkaad wax u hagaajinaysa hadaad disho maxaad hagaajisay billaah alayk yaad wax u hagaajis aqligu inta ma garan waay alaysa minkum rajulun rashid wana wax kala garanayid kuma jira miya maskaxda xageed baad la aadeen kuwa culimada sheeganaya ee culama usuuga ee zuurka iyo buutaanka diinta uga been sheegayo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada waxaad ilmaha ku qaldaysaan ka fiirsada waxiidan ubadkiina u dirteen ilmo Soomaaliyeed ha u dirina ilmaha aad baad iyo zakada u qaadanaysaan waxa sujihaadka nabiga ma aha sallallahu alayhi wasallam alayhi su'aal kale idin weydiinayna intaad aqoontaysan midin tirsan tahay oo dayac ku nool oo aabihi masruufayay aad waxa weeye qarax ku disheen ama madax jabis ku disheen ama maxaa la yiraahdaa ii sheeg aad waxa weeye dhibaato kale ku disheen dhaawac ku disheen midin tirsan yihiin intaad hooyo disheen oo ilmaheeda rajo ka dhigteen midin tirsan yihiin intaad labada isugu darsadeen midin tirsan yihiin inta aad oday iyo hooyo waayeel aad gablan ka dhigteen midin tirsan yihiin inta u waalatay taraawmadii ay ka qaadeen qaraxyada iyo dilka iyo gubitaanka midin tirsan yihiin billaah alaykum سؤال كان maxaa guulood ka gaadheen maxaad xaqiijiseen waxa ummadda ay ku naaloo karto ka dhaxaya maalinka maanta oo aynu ku wada faani karno oo soo noqday caayidka waa maxay aan ku wada faanoon idinka mid noqonee noo sheegay guusha mise waxaad doonaysaan guul darro iyo geeri kaliya ummadda inay ka wada shaqayso tan maxaa ku weliya kuwa idinka dhexdiina aad iska disheen maxaad ku disheen markay idin la jireen maxay ahaayeen markay ay dhibanayeen sabxay ahaayeen maxaad cuskateen looma shaqayn karo wax dil kaliya in loo shaqeeyo aba wax loo dilo just dil baan wax u dilayaa waxaan dilayaa wiil aan qaan gaarin qori baan u dhibayaa maxkamadda waa isaga ma tukada haduu doono qaadku cunaa ciyaar suuqnimo kale ku jira xoogaa baan loo dhibayaa waxa la leeyahay dadka ummadda indhaha waa soo laa bal leeyahay waxa xageebay diin ilaahay kaga taala waxaas hadii ay wuxuuna yihiin waxaan islaam ahayn waa lagu sheegi karaa maafiyanimo burcadnimo tuuganimo fulaynimo bahalnimo wax kasto xun ku sheeg waxaan islaam ahayn waa lagu sheegi karaa su'aal kale idin weydiinaya mis weydiisan fidnadan intaydan bilaabin inta ciidan oo shisheeyo wadanka joogtay iyo inta fidnada bilowdeen inta ciidan oo shisheeyo oo timid oo ku timid idinka fadligiina iyo shaqadiina xun mis weydiisan inta qaxday mis weydiisan intaas inta ka gaalowday mis weydiisan inta ka inxiraaftay mis weydiisan inta badaha ku dhamaatay iyo banaanada iyo waxa la yiraahdaa saxarayaasha carar iyagoo idinka jira inta reero kala loo mis weydiisan idinka daraadin masawirkan laga qaatay wadanka ee foosho xun ee aad ku haysaan mis weydiisan masawirka bidin anfacaya haddaad siyaasad doonaysaan walaalayaal meesha loo marayay siyaasaddu taas maaha waddankeena siyaasad xun oo idinka noociina aad ka wargeli kartaan waa leeyahay laakiin dariiqad martaan dariiq lagu gaari lahaa ma aha laakiin waa la helayaa mid kuwa capacity-ga kala ah ay ku jiraan gala dariiqeeda soo mara qabaa'ilkiina soo dhex mara ilaa qoriga ma ogi
fikir qaldan waa qabi kartaan ummadda isa sixi doonta kuwa kale oo qaldan ba waa jiraan laakiin waa ku dilayaa هذه فرعونية بعينها garanaysaa fircoon baa muxuu lahaa waa idin dilayaa qoortaan idinka goynaya marba la in ittakhadta ilaahan ghayri la aj'alanaka min al-masjuunin law qat'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaaf wa law sallimannakum ajma'in amantum lahu qabla an adara lakum ma waxaad rumaysan Muuse anigoon idin idmin هذه فرعونية islaam ma raliya waxaan idinku baaqaynaa ilaahay inaad ka baaqdaan ummadaas aad indhaheedii rideen indhaha la idinka ridiye idinkuma harin dil iyo dagaal ayadoo sida aad u geysateen baa dadkanu ay yihiin dad sabir badan oo ay diyaar u yihiin inay hore u sii socdaan oo ay ka gudbaan waxaad badeen oo ay diyaar u yihiin inta ilmahooda ah oo la qalday oo idinka haddaad toobad keentaan oo soo laabataan inay idin aqbalaanoo meeshaad ummadda ka geli kartaan aad ka buuxisaan laakiin sida hadda aad ku jirtaan si idin bixinaysa maaha adduun iyo aakhiro waxa aad doonaysaan si aad ku gaaraysaanna maaha berrina waxaa la arki doonaa shabaab iyo gaalo is wata oo ka tarjumaya waddanka gebi ahaantiisaba in la qaato ummadda waxaa la gudbaan marka inaan waxaa loo dhaafin ummadda laga qabto sheekh cabdinaasir dilkiisa astaan wuxuu yahay inaan cid cafisa aanay jirin ma tukataa salaada ma taqaanaa wax ma qori kartaa ummadda intaasaa lagala dagaalamahayaa qandaraaskana cid kale laga soo qaatay saa darteed haddiiba lagu iman doono hadda dagaalka sii gal ciddii gaaraba iyo gaashaan kugu noqon karta sii kaasho maamuladeena yaryarka aan boorka ka jafanno nimanka axad ha loo yeelo cadow ka daran ummadda soomaaliyeed ma dhex joogo